Somaliland albaaba u furmay albaabkaas u furmay aqoonsigay 34 sano raadinayeen waay u gaajoodeen u dhibaatoodeen u sabreen u jabhadeeyeen meelba u istaageen reer Somaliland hadday caqli leeyihiin waxbay ka barteen 4 sano oo ugu dambeysay ee farmaa ay haysteen ninka la dhahayo Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka barteen iska daawaagi 60kii hadda markii ay 2012 ay siiyeen Soomaaliya haddaysan iyaga u saxiixi lahayn kumeel gaarka kamaysan bixi lahayn reer Somaliland hawadii Soomaaliya in la soo celiyo iyaga ka qayb qaatay Soomaaliya inay kumeel gaarka ka baxday iyaga ka qayb qaatay laba codsi ka codsadeen koonfur in wada hadalka koonfur iyo waqooyi la furo oo Somaliland iyo Soomaaliya iyo inaan mashaariicda la siyaasadeynin wada hadalkiina waa la diiday in la furo oo waa la siyaasadeeyay mashaariicdii immigrationadiina waa la siyaasadeeyay abaalgudkoodina wuxuu noqday inuu Xamse Cabdi Barre intuu banaanka soo fariisto isagoo debate ku jira markii la weydiyo reer Somaliland way qaylinayaan oo EFC ay ka qaylinayaan inuu dhaho inay ooyaana rabnaa hadalka waa qoran yahay Facebook ku jira waa ra'iisul wasaarihi dhamaa ee Soomaaliya oo qof walba oo Soomaaliya ra'iisul wasaare ah ilaa lama kala guranine waa ninka afkiisa ka yiri reer Somaliland inaa ciqaabnaa rabnaa Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka yiri inaan reer qabjabinaa rabnaa wasiirka gaashaandhigana waa ninka yiri reer Owdal qani ka dhiga oo qoriga qaata oo halka ka soo abaabulaya dagaalkii hadda ka dhacay meesha la dhahayo Owdal Boormana waa ogeydeen qolalkii inta laga soo furtay guubaabadii ka socotay inay Somaliland gudaheeda dagaal ka dhaco intaas waxay idinku filan tahay risaalati wixii diblomaasiyad ah iyo wixii aqoonsi ah iyo wixii horumar ah iyo wixii arrimaha dibadda ah haloo daayo dawladii aad u codayseen oo sulkiin ugu codayseen dawladda leedihiin madaxtooyada leedihiin xukuumadda leedihiin baarlamaanka leedihiin aqalka guurtida leedihiin aqoonyahana leedihiin dhulka dhiga dawladiina u daay daba orodka ka daaya idinkana qabiilka baryahan cudurka reer koonfureedka idinku dhacay waaga hor dad reer Somaliland ah oo mid ah oo Somaliland dirnimada ka go'an tahay oo aan qabiilo isu kala saarin ba ahaydeen hadda waxa idin arkaya xanuunkii dhinacaas ka imaaday iyo jifadii ay soo dhax gashay jifadii iska daaya midnimada Somaliland ka shaqeeya horumarkiina ka shaqeeya wax barta oo wax beerta social media aan ku waalateen faraha ka qaada horumarkiina dawladiina inaa garab istaagtaan waa dawlad shacab la'aan wax ma noqon karto si kasto Israa'iil ay u tiri i'tiraafan siinaya haddaydan garab istaagin oo dawladiina aydan la shaqeyn warka dawladda kaliyana maqla warka qaaqlayaasha maqlina warka qaaqlayaasha social media fadhiya oo meega ii dhiib aan u bixiya aniga oo fiyusraaska ha maqlina dawladiina iyada idin hogaaminaysa meel xunna idiima sahminayso 34 sano waxay u soo sabraysay bay maanta albaabkeedii u furmay intaas idin leeyahay reer Somaliland oo midnimadiina ka shaqeeya midnimadu waa muqaddas midnimada waa muqaddas ciro uma maleynaayo nin ka degan oo Somaliland u imaan laha inuu jiro mid ka fiican Allah insi kursiga waa u dhaariseen codka idinka siiyay ku qanca aqbalana waana mahadsantahay food